soo dhowaada asxaabey waa walaalkiina barqado maanteeni wadaqayso kaloo aad xanuun badan ka hor intaana bilaabin ognaad muuqaalkan like saartid channelka haddaad ku cusubtana subscribe-ta naga ilmaamin walqasadan si aad u aragtay commentiga nagula wadaag fikirkaada let's go bilowga sheekadeenna waxay ku bilaabanaysaa xaafad ku taalla bariga Nigeria waxaa ku noolayeen dhammaanayaal qurux badan kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Sarah iyo weliba Peter. Sarah iyo Peter waxay ku noolayeen nolol aad u qurux badan sidaasoo kalena jacayl hadhaaf ayaa ka dhexeeyey. Peter waxa uu ka shaqayn jiray meelaha lagu sameeyo furniture ama qalabka guryaha la xiriira. Hada jeerna halkaasi lacag ayuu ka samayn jiray gurigiisa ayuuna ku masruufi jiray halka xaaskiisa inta badan guriga ay joogi jirtay. Si kastaba ha ahaatee sanadadu way isguriyeen lamaanayaashana jacayl ayaa ka dhexeeyey. Si kastaba ha ahaatee maalin maalmaha ka mid a Peter wuxuu ogaaday xaaskiisa inay uur u leedahay. Aad buuna ugu farxay wuxuuna waxaan sugayaa wixii aad ii dhali doontid ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqotee. Qoyska wixii inta ka dambeeyana farxadda ayaa ku sii seeday. Sarah iyo weliba Peter waqti dheer oo ay sugayeen ugu dambeyn Sarah waxay dhashay gabar yar oo aad u qurux badan. Gabadhaasna waxaa loo bixiyey magaca Hadda. Markii ugu horreysay gabadhan qoyskan ku soo biirtana noloshii farxaddii way sii siyaaday. Peterna had iyo jeer gabadhiisa ayuu waqti la qaadan jiray isagoo inta badan kalkooli jiray laakiin wax walba gadaal ayay iska bedeleen. Sarah iyo weliba Peter waxaa jira arrin ay ku baraarugeen arrinkaas oo ah inay arkaan gabadhan yarta ee hadda u dhalatay inay shib iska tahay iska aamusan tahay micnaha aysan ooynaynin waxayna ogaan inuu hadal ka soo baxaynin. Xaqiiqdana waxay dib u caddaatay markii sannado kadib ay ka soo wareegdeen oo ilaa hadda gabadhan aysan hadlaynin. Peter arrinkan aad buu ula yaabay wuxuuna isweydiinayay waxay gabadhiisu hadli la'dahay wuxuuna bilaabay inuu carradii uu kula dul dhaco dhankaasi xaaskiisa iyada ayuuna ku eedeeyeen wuxuuna yidhi xilligii uurka aleed ayaa wax khaldan aad cuntay weliba cunto aan lagugu talagelin. Xaaskiisa markay maqashana waxay tiri walaalow aniga ha eedan. Intaa wixii ka dambeeyey qoyskii farxadda ku noolaay wuxuu jawigiisu isku bedelay jawi dagaal. Hadda jeerna buuq ayaa guriga ka yeela jiray waxaana meeshii ka baxay jacaylkii isku qabeen labadan lamaanayaal. Hadda jeerna buuq ayaa guriga ka dhex taagnay. Si kastaba ha ahaatee Peter maalin maalmaha ka mid ayuu fikray kadibna xaaskiisa ayuu u yimid waxuuna yidhi walaalay maanta go'aan ayaan soo gaaray mana doonayna mar dambe inaan gurigan kusii muranno. Go'aankaygana waxa uu yahay in adiga iyo gabadhaada gurigan aad iga baxdaan. Goortii hadalkaasi maqashay Sarah way aamini weysay mana aysan haysan meel kale aado oo family meeshan u jooga ma uusan jirin. Iyadana ugu dambeyn way aqbashay dharkeeda iyo weliba cunugteeda ayayna meeshii ka kaxaysatay guriga ayayna ka soo tagtay mana aysan aqoon meel ay ku wajahan tahay. Aad bayna u fakaraysay iyadoo aad u murugaysan ayayna waxay soo aaday dhankaasi wadooyinka. Sarah iyo weliba gabadheeda waxay raadiyeen guri wax badan ayayna xaafado garaaceen laakiin waa laga furi waayey. Ugu dambeyn waxay arkeen guri aan dhammaystirnayn weliba gurigaas oo qabyo ahay. Kadibna go'aan waxay ku gaareen bal gurigaas inay iska degaan intay nolosheeda wax ka bedelayaan. Waqtiguna sidaas ayuu ku socday asbuucyadana bilaha ayay isku dhibayeen halka biluhuna ay sanadada isku dhibayeen. Sarah waxay isku dayday shaqo inay raadiso laakiin waa ay ku guuldarraysatay. Mararka qaarna ciidaha ayay dharka u soo dhaqi jirtay waxayna dib ugu soo laaban jirtay gurigaasi halkaas ayayna gabadheeda ku quudi jirtay. Inkastoo Sarah ay ahayd hooyo aad u dadaalaysay haddana marna uma aysan niyad jebin go'aanna waxay ku gaartay gabadheeda inay ku noolayso nolol aad u qurux badan. Si kastaba ha ahaatee 15 sano kadib gabadhii yarta Hadda waa ay weynaatay waxayna dareentay waxa ay nolosha tahay. Hadda 15kaas sano lasoo dhaafo waxay ku nooleed gurigani qabyada ah laakiin maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacay arrin kale oo aan la filaynin. Maalin ayaa waxaa yimid qofkii guriga iska lahay weliba isagoo injineer la socdaan goortuu ninkii lahay gurigana uu soo galana halkani waxa uu ku arkay Sarah iyo weliba gabadheeda kadibna wuxuu yidhi maxaad halkani ka samaynaysaan yaanan kugu talagala waa inaad halkani ka baxdeen. iyadana waxay tiri walaalow guri maysnay laakiin sanado yarna ugu dar. Isagana waa uu ka diiday kadibna wuxuu yidhi waa inaad gurigani ka baxdaan weliba wax uu sheegay haddii ay ka tibixi waayaanna inuu xiri doono. Iyagana waa ay ku khasbanaadeen ugu dambeynna Sarah iyo weliba gabadheeda go'aan waxay ku gaareen inay gurigay ka soo baxaan. Laakiin su'aashu waxay tahay halkee ayay aadayaan. Sarah ayaana mar dambe waxay soo xasuustay mid ka mid ah asxaabteedii hore go'aanna waxay ku gaartay bal magaaladaas inay aado si ay saaxiibadeedu la kulanto waa intaasoo hooyar ay ka heshaaye. Kadibna waxay u soo safartay dhankaasi magaaladii saaxiibadeeda ay ku nooleed safar dheer oo ay soo jibaaxeen iyadii gabadheeda. Ugu dambeyn waxay soo gaareen magaaladii kadibna toos waxay u aadeen meelaha laga waco moobeelada si ay bal saaxiibadeeda ula xiriirto iyadoo rajeynaysa inay ku guulaysato. Goortii ay lambarkeeda soo wacdana nasiib darra saaxiibadeeda lambarkii kama aysan qaban oo way ku guuldarraysatay. Mar kale ayayna ku celisay oo kama aysan niyad jebin. Nasiib darrase waa ay ku guuldarraysatay go'aanna waxay ku gaartay bal inay saacado kala sugto waa intaasoo rajo kale ay heshaaye.
haddana way isku dayday laakiin way ku guuldareysatay. Saara iyo weliba gabadheeda hadda markaan waxaa u soo baxay inay meel cidlo ay taagan yihiin, waxayna bilaabeen magaalada bal inay ku dhex wareegaan. Waa intaasoo helaan guri kale oo qabyo ah ay noloshoodana hore ugu sii wataan. Saara iyo gabadheeda hadda wax badan ay magaalada ku dhex wareegeen, ugu dambeyn waxay heleen guri kale oo qabyo ah. Kadibna guriga ayay bilaabeen inay iska soo dhex degaan, iyagoo rajeynaya bal habeenkaas inay halkaasi ku hakdaan si maalinka xiga si ay wax uga fikiraan wixii ay samayn lahaayeen. Habeenkiina halkaas ayay iska seexdeen. Bal wax yar sheekada Saara iyo weliba gabadheeda halkan uga hakanno. Magaaladani ay Saara iyo weliba gabadheeda ku soo degeen waxaa ku noolaa nin ganacsada ah kaasoo lagu magacaabi jiray Ronnie. Ronnie ma uusan lahayn wax xaas ah, horena uma uusan guursan, wuxuuna ahay nin aad u guulaysto ganacsiga aad ugu takhasusay. Ronnie wuxuu magaaladan uu ku nool yahay ku lahay ganacsiyaal waaweyn iyo weliba hanti kala duwan. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu maqaayad soo aaday, weliba maqaayadahan yaryar isagoo halkaasi ka cunaya ayaana waxaa tin gabadhii yartahay daacadda si ay bal cunto u weydiisato. Miisaska ayayna sidaas ugu wareegaysay ilaa ugu dambeyntii ay soo gaartay Mr. Ronnie. Kadibna waxay bilaabatay cunto inay weydiisato, isagana waa ula yaaba. Kadibna wuu u yeeray si halkaa u soo fadhiisato, iyadana waa ay soo fadhiistay. Waxa uuna bilaabay inuu su'aalo weydiiyo, laakiin iyada ma aysan hadlayn. Waxa uuna ku yidhi, maxaad u baahan tahay? Waxayna u sheegtay inay cunto u baahan tahay, aadna u baahan tahay. Isla markiina cuntadii ayay u dalbay, iyadana waa ay cunto weliba iyadoo aad u faraxsan. Goortii cuntadii dhammaysana way u mahadcelisay. Ilaa intaasna Ronnie wuxuu eegayay gabadha iyo weliba siday u qurux badan tahay. Kadibna wuxuu weydiiyey meesha ay ku nooshahay, laakiin iyada ma aysan hadlin. Waxayna u tilmaantay dhankaas albaabka, taasoo ay ka dhiganeed meel halkaas ayaan ku noolahay. Isagana wuxuu bilaabay bal inuu soo raaco ogaadana gabadhani meesha ay ku nooshahay. Waqti dheer ay soo socdeen, ugu dambeyn waxay soo gaareen gurigii qabyada ahay. Ronnie goortuu meeshaan soo gaaray waa uu la yaabay, wuxuuna halkaas ku arkay aadda hooyadeeda. Wuxuuna weydiiyey sababtay meeshaan ugu nool yihiin. Iyadana waxay u sheegtay wax guli inaysan haysanin, halkaana isaga nool yihiin, xaafad kalena ay ka imaadeen. Kadibna waxa uu yidhi macquul maahan inaan halkan kaga tago, sidoo aragtiin haddii aniga guriga ay igula noolaataan. Iyagana way aqbaleen, aad bayna u farxeen. Kadibna wuxuu u soo kaxeeyey dhankaasi guriga, sababtoo wuxuu ogaaday meeshaan inaysan ammaan ahayn. Ronnie wuxuu lahaa guryo waaweyn weliba badan. Kadibna wuxuu go'aansaday mid ka mid ah inuu ayaga ku wareejiyo si halkaas ugu noolaadaan. wuxuuna yidhi hadda kadib ha ka walwalnina keliya waxaas halkan ku noolaada, cunto walbana waa inii taallaa. Iyagana aad bay u farxeen, way inooga mahadceliyeen. Maalin maalmaha ka mid ah Ronnie waxa uu soo wacay Saara, kadibna waxa uu ku yidhi waxaan u baahanahay gabadhaada. Waxaan maqlay cuntada inay si fiican ugu fiican tahay, maxaa yeelay jeebka aniga cuntada ii karinayay ayaa iga tegay sababo jira aawadooda. Marka sidee u aragtaa haddii gabadhaada aad ii soo dirtid? Iyadana marka hore waa ay ka labalabaysa sababta gabadheeda oo aad u da'yareed. Haddana waxay tiri maadaama gabadhaada aad u jeceshahay uga leex shaqadaasi. Kadibna way aqbashay, waxa ayna tiri diyaar mudan ha ka cabsan, aniga ayaa ayada kuu soo diraya, weliba iyadoo faraxsan. Kadibna waxa uu yidhi la soco bil walba xitaa lacagteeda aniga ayaa bixinaya, lacag dhebel ayaana siinaya, weliba waxay iyada u qalanto. Maamada marka hore waa diiday lacagtaas inuu bixiyo, laakiin wuxuu yidhi qasab ayay igu tawaana bixinaya. Ugu dambeynna maamadii waa ay ku raacday. Maalinkii xigana waxay u dirtay gurigii Ronnie si halkaasi cunto u kariso. Maalmihii xigana waxay bilowday gabadha yarta aadda inay kariso cunto aad u macaan. Cuntadiina waa uu la dhacay ninkii Ronnie ahay, weliba wuxuu ogaaday gabadhan inay hibo u leedahay dhanka cunto kariska. Hadi jeerna isaga ayaa jikada ka caawin jiray. Si kastaba ahaatee, Saara iyo weliba gabadheeda waxay ku noolaadeen nolol aad qurux badan. Hadi jeerna waxay u mahadcelin jireen Ronnie maadaama iyaga garab weyn u buuxiyey. Wixii intaasi ka dambeeyena waxay ku noolaadeen farxad saayida. Iyagana waxay ilmaameen noloshii ay ku jiri jireen. Maalin maalmaha ka mid ah nin lagu magacaabo Judy ayaa wuxuu soo booqday gurigii Ronnie. Bal Judy wax yar aan kaga sheekeeyo. Judy wuxuu ilmaadeer leeyahay Ronnie. Hadi jeerna wuxuu imaan jiray Ronnie, lacag ayuu ka qaadi jiray maadaama ninkan ganacsade u yahay, isagoo cudurdaar u raadinayay si uu ninkan lacag u qaada lahay. Maalin ayuuna guri yimid. Maalinkaasna waxaa arkay Saara iyo gabadheeda weliba gurigaana lagu qodinayay. Aad bun arrinkaas uga carooday. Ronnie ayuuna wuxuu ku yidhi saaxiib maxaa kaa qaldan, waxaa dadka qodan aa u sabood garaynaysaa. Kadibna wuxuu yidhi saaxiibu kaalem adiga ganacsi iska leh, wixiiga aniga ayaa iska leh. Suudiisa markuu intaas maqla wuu aamusay. kadibna wuxuu yidhi walaalow hadda waxaan ku mid xoogaa lacag inay siisid. laakiin aad buu Ronnie u cadhaysanay. kadibna wuxuu yidhi qof waxaad tahay mas'uuliyad aan qaadi karin, lacago badan ayaan ku siiyey weliba 20kii sano soo dhaafay, ilaa haddana wax ganacsi ma aadna samayn, marka maxaad hadda aniga rabtaa? Wuxuu yidhi saaxiib hadda xoogaa lacag yarisay. Laakiin markani waa uu ka diiday. Ronnie wuxuuna yidhi lagama yaabo hadda lacag inaan ku siiyo, sababtoo qof waxaad tahay khayr mas-uul ah, lacagtii lagu siiyana waad ku ciyaartaa. Judysa markuu intaas maqla aad buu uga carooday. waxa uuna bilaabay inuu bal walaalkiisa baryo, laakiin waa uu ka diiday. wuxuu yidhi lagama yaabo lacag inaan ku siiyo, wuxuuna amar ku siiyey
inuu hadda guriga ka baxo wuxuuna yidhi aniga wixii lacag kuu khasaarinayay waa kugu soo khasaariyey haddana lagama yaabo lacag kale inaan ku siiyo marka waa inaad gurigani ka baxdaa Judy oo aad u caraysan ayaana guriga isaga soo baxay dhan kale Ronnie wuxuu u sameeyey wuxuu rabay in ninkani Judy uu noqdo nin isku tiirsan si kastaba ha ahaatee asbuucyo markii arrinkaasi ka soo wareegatay aadda maalmaha ka mid a waxay soo aaday suuqa waxayna doonaysay inay qudaar halkaasi ka soo iibsato goortii qudaartii iyo wixii ay rabtay ay meeshii ka soo dhammaysatay ayay dib waxay ugu soo laabatay dhankaas iyo xaafaddii laakiin hadda goortay gurigii soo gaartay waxay ogaatay wax weyn inay guriga ka qaldan yihiin goortay gurigii gudaha u soo gashana waxay halkaasi ku aragtay waxay aad uga nacday waxaasna wax kale ma ahayna waxay ahayd inay halkaasi ku aragtay Ronnie oo halkaasi yaalla weliba dhiig aad badan oo ka qubananayo isla markiina waxay bilowday bal inay isaga fiiriso ugu dambeynna waxay ogaatay ninkani inuu geeriyooday hadda goortay xaqiiqsatay waxay bilowday meeshii inay isaga oyso weliba ooyin aan innaba caadiyeen isla xilligaasna booliiska ayaa guriga soo gaaray waxayna bilaabeen isla markiiba labada gacmood inay ka xidhaan aadda sababta waa qofka ugu horreeya noqday la toosanaha koobaad waxayna bilaabeen inay dhankaasi xabsiga ay u kaxeenaan iyadoo lagu eedeeyey dilka Ronnie dhanka kale maamadii dhashay aadda taas oo Sarah markii arrinkaani maqashay way aamini weysay qalbi jab ayayna dareentay kadibna waxay soo aaday dhankaasi saldhigga booliiska ayayna waxay maagtay inay la hadasho laakiin iyada xitaa waxaa loo diiday inay gabadheeda aragto wax badan ayay meeshii ku hoysay nasiib darrose waa ay ku guuldaraysatay saldhigga ayayna ka soo saareen waxayna dheelnaga ayaa jawaabka soo siinaynaa iyadoo aad u murugaysanayeen isaga soo tagtay intii waddada ku socotana ilinta ayaa ka daadanaysay waxayna ka fakaraysay gabadhayda dhanka kale booliiska ayaa bilaabay gabadhii inay wareystaan laakiin gabadhu maba hadlayso askartii ayaana bilaabay gabadhan in eedaanta dusha ka saaran iyagoo ay leeyihiin Ronnie ayadaa dishay iyadana waxay bilowday inay gacmaheeda isticmaasho weliba iyadoo tilmaamaysa inaysan wax dilin laakiin boolisku ma aysan dhegaysan hadalkeeda xabsiga ayayna ku celiyeen dhanka kale maamadii Sarah guriga ayay iska joogtay linta ayaana ka qumanaysa maalin maalmaha ka mid ah iyadoo guriga joogta aanay isagoynaysa kana fakaraysa gabadheeda si xabsiga u saar leed ayaa ninkii Judy guriga dib ugu soo laabtay kadibna wuxuu arkay maamadan oo aad u murugaysan wuxuuna weydiiyey waxa ku dhacay iyadana waxay u sheegtay in gabadheedii xabsi ay ku jirto weliba lagu eedeeyay dilka Ronnie isagana wuxuu yidhi hal xal ayaan ku hayaa weliba gabadhaada xabsiga lagu badbaadi karo wuxuu yidhi ugu horreyn waa inay qirataa inay iyada dilkaasi geysatay wuxuuna sidaasoo kale u sheegay haddii iyada sheekadaasi ay qirato dilkaasna ay sheegtay in iyada ka dambaysay in xabsiga loo fududaynayo goortii maamadii intaasi maqashay marka hore waa ay ka baqday haddana ugu dambeyn waxay go'aansatay wal inay arrinkaasi samayso waxayna u sheegtay inay samaynayso maalinkii xigana maamadii waxay go'aan ku gaartay inay soo aado dhankaasi saldhiggii kadibna waxay la hadashay askartii ugu dambeyn waa loo ogolaaday gabadheeda ayayna halkan ugu timid hadda markay aragtay hooyada aad bay ugu farxday maamadii ayaana waxay tiri gabadheedii dhegayso hal shay haddaa samaysay xabsigan adiga waa lagaa badbaadinayaa kadibna gabadheedii ayaa tiri maxaa waaye hooyo macaan Sarah ayaana gabadheedii waxay ku tiri gabadheedii dhegayso haddii aad doonaysid in xabsigan laga soo saaro halka shay oo ku badbaadi karto waxa ay tahay oo keliya inaad arrinkan aad qiratid kaasoo ah inaad tirahdid aniga ayaa Ronnie dilay si xabsigaani lagaga fududeeyo laakiin gabadhii markii intaasi maqashay waa ay dhaxday waxayna tiri hooyo macaan see been u sheegayaa aniga maba dilinba ninkaase dilkiisana aniga wax loo kuma lihi laakiin maamadii ayaa isku dayday gabadheed inay la hadasho laakiin arrinkaasi way ka soo jeeday waxayna tiri hooyo macaan lagama yaabo aniga inaan arrinkaasi sameeyo mar laga yaabo beenaan sheego maamadii aad bay u carootay waxayna bilowday gabadhii inay ku qayliso waxayna tiri aniga ayaan waxaa nalay gabar doqona weliba nacasa haddana taasoona hadleen ereydaas markii gabadhii maqashana aad bay uga naxday qalbigeeda ayayna taabteen iyadoo murugaysanayana maamadii meeshii gabadheeda uga soo tagtay goortii ay gurigii ku soo laabatana maalinkii xigay guriga waxa igu yimid ninkii Judy ay wuxuuna ku yidhi gurigan waa inaad ka baxdaa maadaama hadda walaalka u dhintay aniga ayaana hawshan la wareegay marka hore waxay bilowday inay baris laakiin waa uu ka diiday Judy ayaana alaabteedii yartaa bannaanka ugu soo tuuray goortii Sarah bannaanka loo soo saaray aad bay u weysay waxayna ogaatay hadda dib inay ugu laabatay noloshii homelessnimada iyo weliba guri la'aanta waxayna bilowday inay raadsato meeshii ay ku noolaa lahayd aad bayna isaga oynaysay dhan kale gabadha yarta aada waxaa la soo istaajiyey maxkamadda weliba iyadoo lagu eedeynayo dilkii loo geystay Ronnie iyada xilligaasi ma aysan qof ayada u dooda xitaa iyadana ma aysan hadlaynin isla markiina qaadiga ayaana bilaabay gabadhii inuu ka xukumay xabsi daayin weliba iyadoo la raacayo wixii booliiska ay ka soo aruuriyeen guriga iyo weliba xilliga gabadha la soo qabtay gabadhiina waxaa lagu xukumay xabsi daayin hortay gabadhii intaasi maqasho aad bay u weysa weyna iska murugootay waxayna ogaatay hadda wax raja inay lahayn nolosheeda inta ka dhimana halkan ay ku noolaanayso
sidaasoo kale ninkii Judy goortuu gabadhii xabsi uu ku hubsaday aad buu u farxay wuxuuna yidhi hadda waa guulaystay ninka Ronina hantidiisa aniga ayaa la wareegaya kadibna wuxuu bilaabay hantida inuu isaga isku soo qoro wuxuuna soo aaday dhankaas iyo ninkii qareenka si uu arrinkan isaga u soo sharciyeysto goortuu ninkii qareenka u yimidna wuxuu yidhi qareen waa kusaa waxaan halkaan kuugu imid inaan adiga hantida aad igu wareejisid maadaama walaalkay Roni uu dhintay nasiib darase wuxuu halkaasi kala kulmo waxa uusan fileen qareenka ayaa wuxuu u sheegay Roni intuusan dhiman in hantidiisa kala bar oo ugu deeqay carruurta agoonta iyo weliba meelaha lagu kariyo wuxuuna sidaasoo kale u raaciyey in shirkadiisa ganacsiga uu gabar ku wareejiyey weliba guri kale goortuu ninkii Judy intaasi maqlay wuu aamini waayey wuxuuna u malaynayey inuu ninkaan riyoonayo wuxuuna mar kale ku celiyey qareenkii laakiin qareenkii sidaas ayuu u sheegay wuxuuna yidhi waa inaad meeshani ka tagtaa sababtoo hadda wax kale kuma yaalin Judy goortuu xafiiskii ka soo baxay aad buu u murugooday wuxuuna halkaasi ku waayey rajooyinkii uu rajeynayey rajooyinkaasa inuu la wareego hantidii Roni laakiin hadda wuxuu ogaaday waxba inuusan gacanta ku hayn aad buuna arrinkaasi uga murugooday isagoo murugaysan ayuuna meeshii isaga soo tegey wuxuuna ogaaday xitaa sharaftiisii iyo weliba wixii uu doonay inuu halkaasi ku waayey dhan kale galbaha ka mid Sarah iyadoo meel iska fadhiisay aadna isaga weynaysa kana fakaraysa gabadheedii iyo weliba sidii xabsi ugu jirto ilaa haddana kelinimada ay u dareemaysa ayaa moobilkeeda soo dhacay Sarah isla markay moobilkii qabatay kadibna waxay maqashay codkaasna qof kale ma uusan ahayn waxay ahayd maamo waxay tiri dhegayso waxaan ahay xaaskii hore ee Judy waxaan doonayaa inaan arrin kuu sheego Sarah markii hore waa la yaabtay waxayna tiri waxay ku soo wacaysaa xilligan maxayna ka rabtaa Sarah ayaana weydiisay waxa ay ka rabto isla markiina maamadii qol ku jirta ayaa waxay tiri dhegayso aniga maalin waxaan maqlay in ninkaygii hore kaasoo ahay Judy oo maalin qorsheynayay inuu dilo ninkan Roni hantidiisana uu la wareego sidaasoo kale waxaan maqlay kamera CCTV guriga inuu ka furay marka adiga arrinkaas ayaan doonayay inaan kuu sheego sida kale aniga hadda waan ka tegay Nigeria waxaan aaday halkaas UK aniga iyo carruurtii ayaana halkaas ku nool arrinkan ayaana doonayay inaan adiga kuu sheego goortaysa arrintaasi maqasho aad bay u faraxday iyadoo faraxsanaya dhankaasi waxay u soo orday saldhiggii goortii ay saldhiggii soo gaartana waxay bilowday askartii inay arrinka u sheegto weliba codkii maamada ay ka soo duubtay ay maqashiiso askarta markay maqleenna way xaqiiqsadeen isla markiina waxay soo heleen ninkii Judy isagoo lagu eedeeyey inuu ahay qofkii dilka u geystay ninkaasi Judy cadaadis badan oo la saaro ugu dambeyntii waa u qirtay wuxuuna sheegay isaga inuu dilay ninkaasi Roni wuxuuna u sheegay inuu dilay sabab la xiriirta masayr oo ka masayra hantida faraha badan oo haysto isla markiina isagana waxaa lagu xukumay xabsi daa'in sidaasoo kale qareenka ayaa waxa uu raaligelin ka bixiyey gabadhan sida qaldan ee xabsiga loogu xukumay aydiina waa la soo daayey goortii xabsiga laga soo saarana hooyada ayaa halkaasi ku sugaysay kadibna halkaas ayay habkusisa weliba iyadoo aad u faraxsan Sarah iyo gabadheediina mar kale ayay dib u midoobeen maalmo yar kadibna qareenka ayaa waxa u yimid gabadha yarta aada wuxuuna yidhi gabadheedii warqadahan iga gadoom la soco shirkadii oo lahayd Doni adiga ayaa hadda lagu wareejiyey iyadana waxa ay tiri aad baad u mahadsan tahay qareenkii waa uu naxay waa markii ugu horreysay oo maqlay noloshiisa gabadhan oo hadlaysa iyada laftirkeeda waa ay la yaabtay ereyada afkeeda ka soo baxaya waxayna hadda xaqiiqsatay inay hadlayso isla markiina hooyada ayay la xiriirtay hooyadii markay maqashana aad bay u farxday waxayna ogaatay gabadheeda in hadalka hadda dib ugu soo laabtay aad bayna u farxday sidaasoo kale maamadii markay ogaatay gabadheedii shirkadda lagu wareejiyey aad bay u farxday gabadheediina wixii intaasi ka dambeeyey waxay bilowday inay marka hore wax barato waxbarashadii kadibna shirkaddii iyada lagu wareejiyey ayay bilowday inay maamulato ugu dambeynna iyada waxay noqotay gabar guulaysatay ganacsigana heer saran ka gaartay hadda ganacsigaas ay ku guulaysatay waxa ay bilowday dadka masaakiinta inay ka caawiso oo ay samayso sidii Roni dadka masaakiinta u caawi jiray halkaas ayana sheekadana asxaabay ku soo gabagabaysaa su'aal haddaan weydiiyo asxaabay maxaad ka barateen sheekadani bal fikirkiina commentiga nagula wadaaga walaalkiina barqadooni leh naga inaad muuqaalkan like saarto channelka dadka cusubtaana subscribe ta naga hilmaamin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu